galab wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal qodobada ugu waaweyn caalamka waxaana kamid ah Axmed Madoobe oo shaaciyay dalab lacag ah oo ay u soo bandhigtay dawladda federaalka hanjabaadna u diray ciidamada Haram Cad iyo Gorgor Cabdiwali Cali Gaas oo sanad kadib dib ugu laabtay Puntland iyo ujeedkiisa oo la ogaaday Itoobiya oo la soo baxday safiiradii u fadhiyay Ingiriiska iyo dalal toddoba gaaraya Itoobiya oo la soo baxday safiiradii u fadhiyay Ingiriiska iyo toddoba dal kale dawladda Mareykanka oo Soomaaliya ku cadaadinaysa in wada hadal ay ku dhameeyso khilaafka kala dhaxeeya Kenya iyo nin oday ah oo isku gowracay Muqdisho haddii aad ugu cusub tahay ama aad ugu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 7 bisha 3 Maarso sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada aan ku bilowno Jubbaland madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo khudbad ka jeedinaya furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa weeraray dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa sheegay in madaxda dawladdu ay meesha ka saareen hanaanka sharciga ahaa ee lagu soo dhisay dawladnimada Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in marka loo fiiriyo habdhaqanka dawladda federaalka uusan waxba ka duwaneen midka Al-Shabaab isagoo ku eedeeyay in dadka ka soo horjeeda ay ka saaraan Soomaalinimada iyo diinta sidoo hadalka u dhigay dawladii Al-Shabaab waa isku mid sababtana Al-Shabaab cidii ka hortimaada fikradooda way dilaan halka madaxda dawladda federaalka cidii ka soo horjeesata ay dagaal ay ku qaadanayo yiri Axmed Madoobe madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam oo dawladda khilaaf kala dhaxeeya ayaa ugu baaqay dalalka Turkiga iyo Qatar inay joojiyaan dhaqaalaha iyo tababarada ay siiyaan ciidamada Soomaaliya dawladda Turkiga waxaan oran lahaa jooji ciidanka aad tababareysaan ma jirto dawlad wax lagu aamini karo Qatar waxaan leeyahay jooji lacagta aad bixiso sanad walba Itoobiya waxaan leeyahay joojiya saraakiishiina faragelinaysa arrimaha Jubbaland ayuu yiri Axmed Madoobe sidoo kale Axmed Madoobe ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay lacag u ballan qaaday si uga tanaasulo xilkiisa waxaa maanta sharaf ii ah aniga inaan reer Jubbaland dhaafsiiso doonin 20 milyan oo afka la igu shubo mana jiro macno aan ku gorgortami karay ayuu yiri xilli uu furiyay kalfadhiga baarlamaanka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in dawladdu u soo adeegsatay shakhsiyaad iyagoo uu goodiyay in dil doonaan haddii uusan ogolaan dalabka lacageed isagoo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay inaysan dalka Soomaaliya ka dhici karin wax doorasho maamulka Jubbaland ayaa khilaaf xoog leh waxa uu kala dhaxeeyaa dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo khilaafkaasina sababay inay ku dagaalamaan ciidamadooda xadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya hadalka ka soo yeeray maanta Axmed Madoobe ayaa ku soo aaday iyadoo haatan xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland ay ka taagan tahay qayb ka mid ah gobolka Gedo markaana Puntland madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta sanad kadib dib ugu laabtay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal halkaas oo ka sii diiran lagu soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta sanad kadib dib ugu laabtay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal halkaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa Gaas iyo wafdigiisa ugu hortagay garoonka diyaaradaha Garowe Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyn ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay maatikiisa sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu ujeedkiisu yahay ka qaybgalka shirweynaha 15 bisha Maarso ka furmi doona magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal kaasi oo cilaamiyay madaxweynaha haatan talada maamulka ah ayaa Saciid Cabdullaahi Deni waa socdaalkii ugu horeeyay 13 bil kadib uu Gaas ku tagay Puntland tan iyo markii looga adkaaday doorashadii ka dhacday maamulkaasi Puntland ayaa isku diyaarinaysa qabashada shir looga hadlayo doorka ay ku leedahay dawladnimada Soomaaliya kaas oo lagu marti qaaday saamilada maamulkaasi odayaasha dhaqanka dawladda Itoobiya ayaa la soo baxday safiiradii u fadhiyay Ingiriiska iyo 7 dal kale ila wareedyo diblomaasiyadeed ayaa xaqiijinaya in dawladda Itoobiya ay u yeeratay qaar badan oo kamid ah safiiradii u fadhiyay wadamada caalamka sabab ah in la yahaataan la shaacin telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay la baxday safiiradii ka fadhiyay ilaa 8 dawladood iskugu jira Yurub iyo Afrikaan dawladaha ay Itoobiya safiirada kala soo baxday waxaa kamid ah Suudaan
Morocco, Belgiumka iyo Ingiriiska. wargeys maxalli ah oo Itoobiya ka soo baxay ayaa sheegay in xukuumadda Addis Ababa ay ka carootay mowqifka ay dowladahaas ka qaateen khilaafkii ka dhashay biyo xireenka Al-Nahda. wararka ayaa intaa ku darayay in maalintii Arbacada ahayd Itoobiya la soo baxday safiiradii ka fadhiyay wadamada Koonfurta Suudaan iyo Australia. diblomaasiyiin ayaa sheegay in Itoobiya ay si aad ah uga carootay dowladaha Ingiriiska iyo Belgiumka oo la saftay dowladda Masar kuna baaqay in Itoobiya cadeyso waxa ay ka damacsan tahay biyo xireenka ay ka dhisayso webiga Niil. go'aanka carada leh ee Itoobiya qaadatay ayaa yimid maalin kadib markii wasiirada arrimaha dibadda dowladaha ku buuhoobay ururka jaamacadda Carabta ay taageereen dadaalada ay wadaan Suudaan iyo Masar ee ka dhanka ah biyo xireenka Al-Nahda. dowladda Itoobiya ayaa isbuucii la soo dhaafay iska diiday in ay ka qayb gasho shirar ka dhici lahaa magaalada Washington oo Mareykanku ku dhexdhexaadin lahaa saddexda dowladood ee isku khilaafsan qaybsiga biyaha webiga Niil, kuwa oo kala ah Itoobiya, Masar iyo Suudaan. markaana Mareykanka ayaa dowladda Soomaaliya ku cadaadinayay khilaafka kala dhexeeya Kenya ay wada hadal ku dhameyso. wargeyska The Star oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa wariyay in dowladda Mareykanka ay cadaadis xoogan ku saareyso dowladda Soomaaliya sidii ay hoos ugu dhigi lahayd xiisada kala dhexeysa dhigeeda Kenya. wargeyska ayaa sheegay in ilo lagu kalsoon yahay u soo wariyeen in howlgalka Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika ee Africom uu faragelin ku sameeyay Soomaaliya isagoona amar ku bixiyay in la joojiyo dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland. khilaafka dowladda kala dhexeeya maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa la sheegayaa inay ka qayb tahay waxyaabaha sare u sii qaadaya xiisada ka dhexeyso dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. dhowaan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay ku soo xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya taas oo ay Kenya iska fogeysay. Professor Tuwanja oo ah qabiir darsa siyaasadda Afrika si dhowna ula socda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa wargeyska The Star u sheegay in shaki la'aan tahay in dowladaha shisheeye ay gadaal ka taagan yihiin xiisada kala dhexeysa labada dal. waa run in ay jirto faragelin shisheeye oo ka imaanaysa wadamada reer galbeedka, waana midaas tan loo sheegay Soomaaliya iyo hadalkiisii raaciyay professorka. xiisada u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya oo tan iyo horaantii sanadkan ayna ka soo gudubnay sare u sii kacisay ayaa waxaa sii laba jibaarantay markii labadii bishan dagaal u duleedka Balad Xaawo gaar ahaan inta u dhexeysa Mandheeri iyo magaalada Balad Xaawo oo ku dhex maray ciidamada daacad u ah wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo baxsad ka ah dowladda federaalka iyo ciidamada dowladda taabacsan, iyadoona Kenya maamulka gobolka Gaday dowladda ay ku eedeeyeen in weerarkaasi ay ka qayb qaateen qaar kamid ah ciidamadeeda. madaafiic badanna ay la dhicin magaalada Balad Xaawo iyagoo ka soo tuuraya dhanka Mandheera. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya nin oday ahaa oo isku dilay Muqdisho. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya nin oday ahaa oo barqanimadii maanta isku dilay suuqa Bakaaraha Muqdisho. ninkan oo daahan la sheegay in uu isku dilay ayaa la sheegay inuu isku dilay Torrey xilli uu ku sugnaa qaybta lagu iibiyo maacuunta ee suuqaasi. dad goobjoogayaal ah oo iskugu soo xumay goobta ayaa inoo sheegay ninkaasi uu mindada iskaga dhuftay dhuunta ama qoorta isla markaana uu ku geeriyooday isla goobta. lama oga sababta rasmiga ah ee isku dilay marxuumka, balse wararka qaar ayaa sheegaya in uu ku tugsan jiray suuqa isla markaana la soo dirstay xaalad adag. sidoo kale midkiisa ayaa lagu soo warramaya inuu weli yaalla goobta isla markaana ciidamada amniga ay ku sugayaan ehelada ninkaasi si lagu wareejiyo. suuqleyda Bakaaraha ayaa si aad uga naxay falkan ayaa sidoo kale hadal haya dhacdadaasi. ma ahan falkan dhacdo ugu ah gudaha caasimadda, iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay uu isdaldelay nin ku jiray xero dadka lagu dhaqan celiyo oo ku taala xaafadda Black Sea. ugu dambeyntii askari dilay askari kale ayaa xukun lagu riday. maxkamadda ciidanka Jubbaland ayaa xukun dilah ku riday dable Biliif Khaliif Xuseen. maxkamadda ciidanka Jubbaland ayaa xukun dilah ku riday dable Biliif Khaliif Xuseen oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad. askarigan ayaa 5 bishii 3aad 2020 askari kale oo ka tirsan ciidanka xoogga ku dilay xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo. marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Aadan Dhicis Axmed. garsooraha maxkamadda ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed ayaa ku dhawaaqay in askarigaasi lagu riday xukun dilah. saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channel-kan.